soo dhawaada daawadayaal halkani waa dhabaalka dunida inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ninka imanka sawirku sinay muuqdo magaciisa waxa lagu magacaabaa Saciid Cali Baar waxa caaway dubley hubaysan ay ku dileen duleedka magaalada Galkacyo ninkani waa nin taksiila ah oo caan ka ah gudaha magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug dubley aan haybtooda la garanayn ayaa caaway rasaas wiisay asagoo markaasi marayay inta u dhaxaysa halka loo yaqaano beerta bilan iyo sidoo kale kaamka Tawakkal ee duleedka magaalada Galkacyo ninkana waa u geeriyooday imanka waxa sidoo kale la dhimatay gabar xaaskiisa oo la socotay dabcan sida wararku ay sheegayaan dableydan hubaysan ayaa jidka u galay xilli markaas uu ninkani ku sii jeeday kaamka Tawakkal sawana ka baxay beerta bilan ee duleedka magaalada Galkacyo dadka deegaankaas ku dhow ayaa markaas si weyn arintan kaga naxay iyo dadka Soomaaliyeed dhamaantood waxaana markaas arintani ay salka ku haysaa sida wararku ay sheegayaan aanooyin qabiil oo maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa gudaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug dilka markuu dhacay kadib ayaa waxa goobta gaaray ciidamada ammaanka ee maamul goboleedka Puntland ayagoona halkaas markaas ka baadi goobayay sida markaas ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen dableydii hubaysleed ee dambiilayaasha ahayd ee dilka sida arxan darrada uu geystay ninkan taksiilaha ee markaas lagu magacaabi jiray Saciid Cali Baar oo ah taksiila caan ka ah gudaha magaalada Galkacyo ilaa hadda wax faahfaahina ciidamada ammaanka kama aysan bixin dilka naxdinta leh ee caaw ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo waxaana dad fara badan oo runtii ku dhaqan waqooyiga magaalada Galkacyo dad badan oo Soomaaliyeed si weyn arintan ay kaga naxeen ayadoona arintan ay ku tilmaameen mid nasiib darro ah aanooyinka qabiil waayihii ugu dambeeyay si weyn ayay ugu soo badatay waqooyiga magaalada Galkacyo dhinaca Puntland oo markaas ay ka taliso waxaana milo fara badan sidaan kala ka dhacday in dad badan oo hal door ah dilil kala duwan lagu geystay ayadoona markaas loo aaneynay markaas aanooyin qabiil oo markaas si weyn ugu soo laalaabtay gudaha magaalada Galkacyo waxay warar ku soo kordhada wadayaan halkan ayaad kala socon doontaan fadlan haddii ku cusubtahay YouTube-kayga dhambalka dunida subscribe soo saar sidoo kale page-kayga dhambalka dunida asagana soo follow garee baraheena bulshada sidoo kale waad nagala socon kartaan